xaflad soo dhaweyn ah oo loo sameeyay xildhibaanad Shukran Xuseen Guure oo ah xildhibaanad laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari ee wadankaasi Kenya ayaa waxa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee cariga wadankaasi Mareykanka iyadoo xildhibaanadu markii hore ka tirsaneed qurba joogta halkaasi deganeyd faafaynta warkan iyo xafladaasi soo dhaweyntii halkaasi loogu sameeyay waxa warbixinta nooga soo diray wadanka Mareykanka wariyahayaga Sakriye Aadan si aada loo soo abaabulay laguna soo dhaweynayo xildhibaanad Shukran Xuseen Guure ayaa waxaa lagu qabtay bartamaha magaalada Minneapolis hotelka caalamiga ee Safari. xafladan ayaa waxaa lagu soo dhaweynayay xildhibaanada qura ee laga soo doorto Waqooyi Bari ee dalka Kenya gaar ahaan Garissa County kii ugu horeysay xildhibaanadan ay timaado gobolka Minnesota iyadoo hore u deganeed gobolkani balse dib ugu noqotay sidii dadkeeda wax ugu qaban lahayd. Leenahay Shukri soo dhawow qalbi furan oo kalgacal xambaarsan baan kugu soo dhaweynaynaa annaga oo ah haweeye qofkii u horeeyay gabadh ah laga doorto iyadoo MP loo doorto gabdhuhu khayr laasi gabdhuhu aad iyo aad bay nooga niyad fiican yihiin nooga wadanisan yihiin nooga jecel yihiin in wax waliba hagaag waxaan rabaa inaan sheego gabdhaha Soomaaliyeed ama gabdhaheena soo kacay oo reer Garissa wadankooda dalkooda ayaa weli u baahan waxayna ugu baahan yihiin saa ku caawin lahaydeen waa isla soo kornay husbandkeena waa isla soo kornay isku magaalo so I'm very proud waxay sameynayso Shukran waa isla soo kornay waa isla dhalanay waa isla soo wax baranay since nursery up to class 8 wafante so her dreams waxay ahaan jirtay Safiyo insha Allah haddaan iskoolka bogo sidan dadkayga wax ugu tari lahaa waa inaan ku talagalaa maasha gabdhuhu xilka ugu sareeyay umada u qabtaan maxaa jira gabdhuhu markay sidaa yeelaan gabdhuhu nabad ay ka shaqeeyaan gabdhuhu gaajatirka ka shaqeeyaan gabdhuhu cusbaalada dumay dhisidooda ka shaqeeyaan macnaheedu waxay tahay she made history taariikh bay samaysay marka taariikhda ay samaysay buugaaga lagu qori doonaa haddii ay ku sii socotay haddii kaleba inaga mataleysa daaray Minnesota nahay ay inaga wakiil bay loo tahay MP-ga Minnesota weeyaan Shukran Xuseen Guure kursiga markii uu carreeyay waxay ka ciyaarayaan waan trigonometry waan fiirinayaa mar ilaahay wuxuu ku siinayaa qof lama tashanayo ku siinayaa waana qof she is focused waxeedana waxa waaye dadkeeda wax bay u taraysaa wuu sunsumaya waqti wuu sunsumaya midna waa la sugayaa soo jira ma noole qarni waliba wuu socon safna wuu ka daba dhalan hadba kooda sarakaca waxa sahayda uga taga kii hor u sagootay dad ka seexda mooyee sinjigii oo iyo sumadaas noolaan soo waxa waaye midda ugu koowaad Garissa County markii la dhaho dumarka xaqiisa markaan ka hadlo dhibka ugu weyn oo haysto oon raba aniga inaan wax ka qabto at least 4 sano ba soo harta hada bilooyinka hore shaqo ma jirin oo waxa lagu dhameystay gabgab waxa ma jirinba hadda ay bilaabanaysaa shaqo midda ugu koowaad maternal mortality rate oo Garissa County dumarka dadaab meesha la dhaho oo gurigeygana oo na matalo ya ugu badan dadka ugu dhinta dumarka uurka sababta ugu caan waan sheegi doonaa horta meeshaas waxay hoos garaystaa waxa ku yaala the largest refugee camps in Kenya in East Africa oo dhan waa ku taalaaba refugee-ga marka gaari moogi lagu ma dhaxmaro because ma gaaraysid berida muu baad gaari meesha ugu dambeysada ididan hore ka bilowdad ka gashay baabuur baad ku dhaxmari kartaa lagu ma dhaxmaro lug hata kuma adeegtaan dadkaas because waa la kala fog yahay xaradana way weynta dhibaatada ugu weyn keenaysana waxa waaye inay maamayaashan dhintaan mise cunugii uu dhinto uurka caloosha ku jira
gobolkan ka imaadane fanaaniinta gobolka Minnesota kuwooda ugu qiimaha badnaa iyaga oo caaweed xafladani ahayd xaflad si aad loo soo abaabulay Zakariya Aadan Universal TV North America